muhiimadda aan maanta halkan u soo istaagay waxaa way markii ugu horeysa inaan u hambaliyeeyo dhiirigeliyo ciidamada xoogga dalka oo dagaal kula jira khawaarijta dalka guud ahaan koonfurta iyo barigaba dagaalada ka socda daacish iyo al-shabaabba waxaan dhiirigelinayaa u hambaliyeynayaa ciidamada xoogga dalka waxaana leeyahay halgan waxaad ku jirtaan aad iyo aad muhiim u ah waxaad ilaalinaysaan qarannimada midnimada wadajirka ummadda Soomaaliyeed aad ilaalinaysaan waxaana ku jirtaan camal oo muqaddas ah ummadda Soomaaliyeed aad u haysaan waxaan si khaas ah u hambaliyeynayaa ciidamada koonfur galbeed oo runtii dadaal dheeri ah muujiyay cadowgana ka guuleystay waxaan leeyahay hambaliyo waxaan u rajaynayaa intii ciidanka ka dhimatay meel kasta ay joogaan in ilaahay dambigoodana dhaafo jannadana ku waraabiyo intii dhaawacantana ilaahay inuu fiyowayo marka waxaa kale aan baaq u diraya xukuumadda iyo shacabka Soomaaliyeedba inay isbarbar istaagaan caawiyaan ciidamada qalabka sida maadaama dagaal lagu jiro waxay u baahan yihiin in mar kasta gadaashooda la taagnaado biyo la daba taagnaado cunto la daba taagnaado caafimaad la daba taagnaado midkooda dhaawacmay la soo qaado la daaweeyo midkooda dhintana shahiiday aan dhahe si ma aragtay xurmad ku jirto in loo soo qaado loo duugo ahladoodana ma aragtay loo sheego inuu shahiiday ahlada caruurta iyo dumarka ay ka tageen dawladda inay ka warqabto run ahaantii aad iyo aad baa arrintaas muhiim u tahay waxayna muhiim uga tahay ciidanka moraalkiisa inuu kor u kaco mar kasta oo dagaal galay og yahay qofka ciidanka caruurtiisa iyo xaasiskooda in ma aragtay la kafaalo qaaday dawladda ka war hayso markii dagaalka galayaan niidaas ay ku joogaan la rabaa marka xukuumadana waxaan uga baaqayaa inay noqoto xukuumad oo ku jirto dagaalka runtii waxaad moodaa in xoogaho xukuumadda gaabisay ya dareemaysa markaad dareento wasaarooyina jira ku shaqo leh dib u dejiisinta iyo dib u xasiliinta ku shaqo leh wasaarooyinka jira oo meesha la qabtay inay hayaan cadaaladda iyo nidaamka cadaaladeed inay ku soo celiyaan wasaarooyina jira ku shaqo leh ma aragtay gargaarka degdega caafimaadka aado arrimaha bulshada ha aado inay qabtaan marka xukuumadana doorkeeda ha qaadato shacabkana doorkooda ha qaateen waxaan u rajaynaynaa ciidamada xoogga dalka meel kastoo ay joogaan guul iyo gobonnimo